بسم الله الرحمن الرحيم. dhegeystayaal waxaan rabaa anigoo xamdi axmed cali ahaa inaan bal caawa aan isku darhayo 3CR radiogii iyo video aan ka jawaabo dhowr mas'alooyin fara badan oo runtii la iga weydiinaya dadku arrimaha ku saabsan guryaha. baryahan waxaa aad looga hadlahayaa guryaha. maxaa laga yaabaa inay maadaama guryaha in badan la joogay oo lockdownkii gobolkan Victoria oo dhan uu galay mar khaasatan magaalada Melbourne, haddana khaasatan dadkeenu meelaha ay deganaayeen laba xafadood ee Flemington iyo North Melbourne ayaa sababtay. laakiinse haddana waxaa xaqiiqo ah taabasaytun ma ahe in ay dowladuna ay focus la saarahayo oo lagu jaaynayo. waxaana muhiim ah in la ogaado gurigu oo waxyaalaha ugu muhiimsan mujtamaca iyo qoyska. saa daraadeed dadku oo dhan baa u baahan. taa macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii ay dowladdu rabto inay wax ka qabato dadka baahidooda amaba dhaqaalaha, labaduba gurigu ayaa ka ciyaari kara qayb aad u weyn. marka midda hadda aanu xoogga saarayno arrintan soo noolaynaysa, soo celcelinaysa aad u maqlaysaan baa waxay tahay xagga dhaqaalaha weeye. maadaama oo uu dhaqaalihii hoos u yara dhacahayo, xataa COVID-19 oon dhicin ka hor xataa lasoo dareemahayay, ayay dowladdu khaasatan dowladda federaalka ah waxay ku dhawaaqday arrin loogu talagalay inay dhaqaalaha lagu dhaqdhaqaajiyo ama waxa la stimulus lagu sameeyo. arrintaasi waxay ahayd ugu horreysay sanad ka hor ayaa dowladda dhexe ay ku dhaqaaqday, taasoo ay ugu talagashay dadka guryaha dhisa in ay maaragtay ay ka caawiso inay shaqo badan ay create gareeyaan, ay guryan dhisaan. dabcan dadkiina marka uu ka faa'iideysanayo dadka aan guri weligood gadanin la dhaho first home buyer la dhahana, oo sidaan ognahayba dowladdu ay ka caawiso sida garantiyo ama lacago bilow ah intay codsadaan la siinhaya si ay maaragtay depositka u horeysa isaga bixiyaan. badhna dowladda dhexe ee federaalka ay bixiso, badhna dowladda gobolka ay bixiso, oo ilaa mar ay gaadhaysay markii dad qaarkood ay xisaabiyeen 40,000 ku dhowaad markii lagu daro 20 ama 25 ay dowladda dhexe bixinayso, ilaa iyo 10 ama 15 ay dowladda gobolka bixinayso, ay lacagtii maaragtay isku gaadhaysay 45,000 mise ilaa 50 ku dhowaad oo kaleeta lacag isku gaadhaysa ruuxu uu xaq u yeelanayo inuu helo. oo saan sheegnay muhiim ah in la fahmo arrintu ma aha dad baa la rabaa un keliya in guri laga caawiyo, laakiin waxaa ku jirta sidii asagana dhaqaalaha loo caawin lahaa. ileen dhaqaalahaas ayaa wuxuu sameeyaa markii guri dhismihiisa lacag lagu bixiyo dadku ay dowladdu ka caawiso, oo ka soo qaad qoys uu dhaqaaqo inuu guri dhisto, waxay caawinaysaa isla markaaba dadkii guriga dhisahayay shaqaalaha tradeska la dhaho, waa dadka korontada iyo biyaha iyo maaragtay dhagaxa waxaasoo dhan sameeya, iyo asna kambanigii dhisahayay ee waxaan maamulahayay isku dabaridahayay beelka korontadan caadiga hore u soconaysa, biyaha, gaaska, canshuurta guriga ee la bixinayo ee councilku uu qaato, iyadoo haddana iskuulkii oo maaragtay helahaya ardo qoys hadduu meesha yahay, buugto, waxyaalo fara badan ayaa ku dul nool oo haddana dib dhaqaalihii ugu noqonayo. saa daraadeed ayay marka ay dowladdu asaan sheegnay ay ugu dhaqaaqday inay dadka ka caawiso, asagoo ay qayb weyn ka tahay haddana midda ugu muhiimsan si dhaqaalaha loo caawiyo. dowladda dhexe ayaa markaasaan sheegnay lacaga waxaa jira laga caawinayo dadka inay first home buyer kala dhaho. waxay marka ay ku dhawaaqday dowladdu meelaha sanad ka hor baan u malayn inay ahayd ama 2 sano haddayna ahayn, in ay tallaabo kala qaadayso, taasoo ah haddii ay ruuxu uu iska bixin karo 5% guriga ay gadan hayaan depositkii, manaha 5% hadday iska bixin karaan oo deposit aha guriga ay gadan hayaan, in ay dowladdu ka bixinayso insuransiga waxa la dhaho. taas oo anigu nin marka hore aad u sii fiiriyey ma ahayn oo aqoon badan uga baxsan tahay. waxaan aan maaragtay ay ka fahmay waxaa jirta wax la dhaho insurancy, oo markuu ruuxu uusan haynin 20 miyaa la yidhi ka yar
wax 20 gaadhaya uusan haynin oo ku saabsan maaragtay maaragtay guriga maxaa la dhihi jiray markaasaan sheegayay waxaa dowladdu marka ay samaynaysaa dowladda dhexe khaasatan in ay meesha ruuxu markuu uu guri rabo inuu gato waxaa la yidhi hadduusan ruuxu haysanin 20 ama 25 miyaa la dhahaa boqolkiiba guriga deposit ahaana u haynin wuxuu u baahan yahay insurance inuu galo oo kaasoo markaasna lacagtii ilaa waxaa la yidhi 30,000 mise 40 wax noocaas oo kale ku daraysa dowladda dhexe ayaa marka waxay tiri waxaanu diyaar u nahay inaan dadka guryaha markaa gadanhaya asagoo shuruud u taallo in aanu ka caawinno arrinta insurance-ga ah oo ayba dowladdu si haddii loo fiiriyo noqotaba insurance-ga ay u noqoto waxaa marka shardiga lagu xidhay waxay tahay arrintaas oo dad ay maqlahayeen oo iyadoo la isu sheegayo inuu ruuxu haysto guriga uu gadanhayo 5% inuu hayo 5% inuu hayo waxaa kaloo shardi looga dhigay inuu gurigu qiimihiisu uusan ka badnayn magaalada Melbourne oo kale 800 iyo maxaa 50 meelahaas lagu qiyaasay inuusan ka badnayn New South Wales 900 inuusan ka badnayn xaafadaha baadiyaha iyo meelaha ahna 500 iyo 600 meelahaas oo kale weeye inuusan ka badanin laakiinse midda ugu muhiimsan kale iyadana waxay tahay oo dadku u baahan inay ogaadaan ilaa 27 organization oo aan Commonwealth uu ku jiro bangiyada qaarkood kalena ay ku jiraan ayaa dowladdu u fasaxday inay maaragtay ay sameeyaan dadka ka caawiyaan arrintaas oo danaha waxa la dhaho pre-approved macnaheedu waxa weeye soo duubo any bank ama any qolo oo maaragtay bixisa deyntii waxa bixisa intaad u tagto ma dhihi kartid maaragtay arrintaasaan raba inaan galo inay sameeyaan waxaa kaloo iyadana shuruudda kale ee ku jirta ee muhiimka ah waxay ahayd dowladdu markii u horeysay ay arrintan ay soo saartay waxay ay ka dhigtay tirada inta ruux ee arrinta laga caawinayo 10 inay yihiin 10,000 oo ruux waxaan aaminsanahay sanadkii ku xigayna oo sanadkiiba 10,000 uu yahay 2 sano oo soo socoto kale sanadkii hore iyo sanadkan hadda ah aakhirkii waxaan maqlahay iyadana markii dowladdu ay arrintii yara badatay demandigeedo dad badan baa u baahan la yiri inay ku kordhiyeen ay ka dhigaan 30,000 marka macnaha waxa weeye Australia oo dhan weey dad baa isoo weydiiyay oo igu yiri su'aalo oo dhahaya arrin dadka Afrikaanka loogu talagalay miyaa oo maaragtay la leeyahay arrintaas la idinka caawinaya arrintaasi ma jirto wax Afrikaan loogu talagalay oo khaas ah ma jirto waa arrin guud oo Australia oo dhan ah weeye ayna dowladdu wadato waxaa muhiim ah in arrintan ay rajo leedahay inay sii socoto ay waliba badato mucaaradka Labourka waxay dhaheen arrintan waa arrin fiican oo in badan anagu aanu dhahayn hala sameeyo dowladdu maxay u saaraysaa tiro xadidan oo uga dhigaysaa hadda 30,000 oo ruux Australia oo dhan uga dhigaysaa may ka dhigto wax furan oo ruux kasta oo shuruudaha kale ka soo baxaya waxa kale oo ku jirta idan kulliba ku jirta gurigu ma oo investment looma dhigi karo ama beec mushtari ahaan macna guri adigoo leh oo guri kale inaad gadato oo lacag ku samaysto iyadana taa kuma jirto waa inuu yahay ruux maaragtay first home buyer aha gurigana uusan guri kale uusan kii koowaad gadanaya uu yahay inuu degana uu rabo saan sheegay qiimihiisu inuusan guriga qaali oo kale dowladdu ka caawinayso macnaha milyan iyo waxa gaadhaya inay macnaha uusan ahayn qiimahooduna meel kastaba in lagu tilmaamay inay tahay guryaha intooda badan qiimahoodu intuu yahay in uu ruuxu macnaha uu isticmaalo saan sheego oo kale organization xadidan oo 27 aha inay marti ku jiraan waxaan weydiiyay oo aan idin sheegi karaa inaan hay'adan in badan dadkeenu isticmaalahayeen inkastoo dad ay ka qabaan maartay su'aalo ka qabaan inay waafaqsan tahay sharciga 100% in waafaqsan tahay MCCA marka loo yaqaano waan weydiiyay nin runtii aan ka aqoonay baan weydiiyay arrintan inay ku jiraan waxa la ii sheegay inay ku jiraan hadda laga yaabo inay dib ay ka soo galaan ama laasadadan la joogo programka asaga inay ku jiraan macnaheedu waxa weeye 27 organization ay dowladdu maaragtay ay soo calaamisay ama maaragtay arrintan ay u wakiilatay inayna ku jirin taas marka waa midaas weeye waa arrinta jirta dadku waxaana ogaataan iyadana muhiim ah oo dadku u baahan inay si cadaan arkaan kama bedel wax isbedelay ma jirto markii loo fiiriyo xaqii ribadii la bixinayay ama interestiga iyo deyntii iyo waxaas oo dhan wax isbedelay ma jiro waa tabteedi way kali ah waxaan loogu talagalay ruux ama uusan recordkiisa fiicnayn oo ka soo qaad shaqo reliable ah oo maaragtay full time ah ama full man yani permanent inuusan haysanin oo uusan proof gareyn karin oo lagu qadcaynin inuu iska bixin karo iyo inuusan depositka 20% ah inta badan ama 10 miyal dhaha dadka inta badan shardi looga dhigo inuusan ka soo bixi karin markaas ay dowladdu marka ku caawinaysaa
oo ay ku noqonaysaa wakiil haddii bishardi 5% guriga hadduu 400 kun yahay waxaan u maleynayaa meelaha wax 20 kun ka yar weeye inaad bixiso iyo marka dawladdu ku leedahay waan ka caawinaynaa annaga ayaa wakiilka noqonayna laakiinse guriga sidiisii inbaad interestigi iyo ribadii wuxuu ahaa aad u galaysaa marka dadka iyana si kale u qaadanin oo moodin wax kale ayna ka dhigin arrin kale iyadana waxaa jirta maaragtay dadku ay sheegahayaan oo weli wax hirgelinaya oo ku dhaqaaqay aanan arag oo u baahan naftigeeda in laga baaraandego oo siday tahay loo ogaado oo waxa ay faa'iidadeedu iyo waxay ku fiican tahay waxay ku xun tahay iyo kuwa yaalahan kale waxay kaga bedelan tahay waxa la dhaho rent to earn macnaheedu waxa weeye waa guri aad degayso kaasoo marka deedna aad kiraysanayso adaa lagaa kireeyay macnaha laakiinse wuxuu u degantahay gurigaasi aakhirkii inaad adigu yeelato arrintaasi arrin si fudud haddayna dawladdu wadin oo inta badan laga yaabo hadday wadaan inuu shuruudeedu ka yar sahlanaato waxay dawladdu leedahay uusan ahayn waxaad ogaataa company hadduu arrintaa kuusan wayna jirtaa companiya saa sameeya waa shuruud adag weeye waxaa laga yaabaa gurigii in lagu yidhaahdo haddaad kiradiisii inta ay tahay marketka lagu bixiyo ama oo in yar lagu daray aad bixiso muddo 20 sano ah haddii markaa aad maaragtay lacag bixin karto inaad maaragtay guriga yeelanayso ama waxaa laga yaabaa in shuruud laga saxo lagu yiraahdo gurigan inaad saa u deganaato 30 sano oo macnaheedu ay tahay haddii aad 29 sano aad deganaato oo sida u waday asaa sanadkii u dambeeyay wax kasoo dhacaba aad arrintii kasoo bixi weydo inuu guriga uusan guriga noqonayn marka taas waxa u baahan arrinta rent to earn arrin sida laga dhigahayo oo maaragtay in lagu leeyahay guriga kariisa baad bixin waa iska yeelani ma aho program dawladdu ay leedahay khaasatan Victoria ka jiray oo housingka ku jiray baa jiray oo jirtay oo hadda soconin kaasoo ahayd ruuxu markuu guri dawladda ka codsado sida house oo kale in uu marka ugu horeysa uu dagahayo dibna inuu ka codsan karo waa laga yaabaa taan ma hubo laakiin waxaan ogahay markii hore inuu ruuxu codsanayo oo uu leeyahay maartay waxaan rabaa programkaasi gurigan aakhirkii anigu aan yeelanayo in maaragtay la iga diro la igu diro processka markii ka lagu sameeyo bas waad saxiixi guriga marka kiradii caadiga ahayd ee bixin jirtay in baad bixin markaas muddo la gaaro ma garanayo intay tahay yaad markaa dadna gurigii ama waxaad u leedahay door waxa laga yaabaa dad lacag in go'aan bixiso inaad guriga la wareegi karto ama haddii kale haddaad sidaaba ku wado muddada markii la gaaro inaad guriga yeelanayso taasoo kale marka waxay u fiican tahay dadka xataa kiradiiba iyagoon qaali ku noqonin guri laga yaabo dawladeed inay deganaadaan dad baa hadda Australia degan 30 sano ku dhawaaday haddana ka badaninba deganaa dadna waxay degan waan ogahay 20 iyo 20 sano deganaa inahaasoo kale markaa deganaato inaad ama qarka u taagantood u dhowdahay inaad guriga yeelato ama haddii kaleba aad yeelatayba haddaad markii orta saxiixay taasoo kale oo midda dawladda ah waliba oo haddana laga yaabo dawladda xataa naftigeeda hadday dad badan arrintaas ay si u yar qabato qaab daran in dawladda la caamsan karo oo la bushgarayn karo oo la dhihi karo maaragtay sidan laga daayo sidan loo waxeeyo oo dawladdu iyo shacabkii weeye sharciga ama policy haddii wax laga bedelo wax isbedeli karaan oo si wanaagsan loo waxayn karo waa arrin fiican weeye laakiin si aad looga taxadaro markaad arrintaas oo kale aad galayso markay tahay company caadi oo bic mushtari ah companygaasi waxa aakhirka ku soo urursaday waxaad ogaataa meesha wax lagu wado waxa weeyaan gurigan lacagtiisii iyo faa'iido in la helo inta badan guryaha lacagtooda waxay ku soo noqdaan Australia meelaha 30 sano way 30 sano iyo wixii ka badan way kolba lacagta aad bixinayso dad waxoogaa dheeraada bixiso 30 sano way ka yaraanaysaa haddaad inta loogu talagalay caadi ah inta badan dadku bixiyaan aad noqoto 30 sano iyo wixii ka badan way haddii marka aadan saas aadan shuruuda noocaas ah ka soo bixi weydo waxa qaarkood ku dhacdo ama wax kastaba ha sababee gurigii saad u soo waday waqtigii markaad aad ugu soo dhowdahay ama muddo dheer ba aad waday xaaladaada wax iska bedelo lacagihii aad soo bixiso dhan inay noqdo hal bacaad lagu lisay oo macnaheedu ay tahay kambanigii bangigii gurigii la wareegaya laakiinse adigina wax ku meesha kaas faa'iido ka soo gashay ma jirto haddana adiga daac lagu raacanin haddii lagu raacan karo inkastoo mar hadduu finance uu yahay kirada recordka oo ka xamaada mooyeene macnaha xabis iyo qaan kaliya laguma sii qabsanayo waa iska finance bay runtii noqonaysaa waa civil matter way laakiin se de wax khasaare ka weyn muxuu yahay wax aad ku hirinaysay oo 20 sano aad waday oo lahayd guri baan yeelan doonaa oo wixii oo dhan uu noqday hal bacaad lagu raacdo lagu lisay bal laga yaabo adiga in daac lagu soo raacdo marka arrintaasi hal laga tiro la socdo waxa kale oo jirto oo iyadana aan jeclahay inaan ka hadlo waxoogaa si dheeraad ah arrinta dawladda gobolka Victoria oo runtii samaysay ku dhawaaqday arrin aad iyo aad u weyn oo u baahan inaan la fudaysanin oo ku saabsan guryaha kirada guryo aad u badan la dhisayo taasoo marka inagana laga yaabo inay fursad ka jiraan haddii maaragtay waliba dadku isu yimaadaan oo maaragtay dawladda lala macaamilo lala engage gareeyo
marka taasna marka dambe ayaan kusii ka hadli doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.